سلام كدب waxaa sharaf iyo reyn noo ah maantay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan lagu ayidayo nabadda magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir runtii bahweynta hawiye ee gogoshaan noo dhigtay nagu martiqaaday waan uga mahad celinayaa sida ay u muujiyeen dareenkooda damiirta wadaniyeed daljecel iyo dadjecel uu ku dheehan yahay mudanayaal iyo marwooyin waxaa ballan ilaahay nagu ah anigoo ku hadlaya dhammaan hay-adaha dowladda madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka iyo reer Banaadir oo dhan iyo madaxda ciidamada iyo ciidamadaba qayb kastoo dowladda codkooda anoo ku hadlaya waxaa ballan ilaahay nagu ah inaan fulino aan ka jawaabno codsiga iyo rabitaanka aad halkan ka muujiseen walaalayaal waan dareemi karnaa danqashada aad u danqanaysaan nabadda bulaashay bilicda caasimaddiinna iyo baraaraha dadkiinna waxaan ognahay dhibaatooyinkii la soo maray sida ay dadka iyo dalkuba u yaaleen muuqaalka wanaagsan dalkana wow dib dhacweyn waayahay waa mahadsantihiin barbaarta gaashaaman waxaan rabaa inaan mar walba muujiyo sida aan idinkugu garab taagannahay dowladda Soomaaliya ay idinkugu garab taagan tahay dareenkiina foojigan oo ka foojigan wax alla wixii wax u dhimaya nolosha bulshada iyo bilicda caasimadda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad u garateen ee aad uga dheedhiseen damiir laawayaasha mar walba abaabula waxyaabaha liddi ku ah wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliyeed maalin kasta oo guri bilic leh uu ku soo kordho oo waddan nadiif ah ay ku soo kororto dad ay dhibaysaa waxaan u shaqaynaahu waa horumarka dadkeennan waxaan u shaqaynaahu waxay tahay in bulshada reer Banaadir ay hesho caafimaad waxaan u shaqaynaa bulshada Banaadir inay hesho waxbarasho waxaan u shaqaynaa bulshada reer Banaadir inay helaan biyo nadiif ah iyo koronto qiimo jaban wax badan waa xaqiijinay wax badanna waa u soconnaa inaan gaarno biidnillaahi alkariim aad iyo aad ayaan uga xunnahay mana soo dhoweynayno baaqyadii colaadda dhiilada colaadeed xambaarsanaa ee maalmihii la soo dhaafay ka soo yeeray odayaashii ka dhashay bahweyntan laakiin aan hubo inaan lagu raacsanayn xaqiiqdu waxay tahay beelweynta hawiye halkan joogta rabitaanka ay maanta halkan ka muujiyeen inta aad nabaddiinna ilaashanaysaan
waxaan ugu ballanaa inaan idinku hor kacno sida aad u doonaysaana aanu dhaqan gelinno danta guud ha loo dadaalo danta guud halloo dadaalo danta guud dadoo weydinla hadlaay ha loo dadaalo danta guud halloo dadaalo danta guud dangaara dalka ma dhiste halloo dadaalo danta guud dalka ma dhiste halloo dadaalo danta guud dalka ma dhiste dadaalo danta guud wasiir waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yihiin barbaarta gaashaaman walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin muddo fara badan aad joogteen ma rabo inaan hadalka idinku dheereeyo mar kasta oo dareenkiinna inaad muujisaan aad doonaysaan sidaan oo kale noo soo wargeliya waa idin imaanaynaa waana idinkala qayb qaadanaynaa waxaan rabnaa inaanan ka yeelin inaydan ka yeelin kuwa ku taliya ama ku talinaya magaaladaani inay mar kale ay dunto ay mugdi noqoto mid baan maqlayaa ku talinaya ama ku baaqaya in canshuurta la joojiyo canshuurta oo la joojiyo waa haddii ayuu ku taliyey canshuurta in la joojiyo ayuu ku talinayaa wuxuu ku baaqayaa in balaayo dhacdo oo dagaal ay dhacaan waddooyinkii aan shala dhisnay taayaruu ku gubayaa wuxuu leeyahay marka dad yahow aniga ha lay doorto anigaa idin rooni runtiis miya hawiye nimaan u dhimrihaynino dhaaraya waxu dhiibaman dhaaraya xilu dhiibaman no dhaaraya xilu dhiibama aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan muujiyo nimanka mas-uuliyiinta ahaan jiray ama murashaxiinta madaxweynaha soo ahaan jiray haddana noo sheegay inay yihiin madaxweynaha hadda ay diidan yihiin xilka haaya codadkii ayagu ay heleen ayagaa la jeclaaday oo siiyey maantay marka ma garanayo anigu hal cod ma siin murashaxna ma ahayn xildhibaanna ma ahayn laakiin waxaan goobjoog ka ahaa meesha doorashadu ka dhacaysa qof kasta oo ayaga ka mid ah intuu la ekaadaba wuxuu helay tiro codad ah waxaa codaynayay xildhibaanadii soomaaliyeed tiradii uu helay mid kale ma siin hawiyaha uu hadda sheegayo ma uusan siin wuu ka ordaayey wuxuu siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo codadkii uy siiyeen ayagu ayuu madaxweyne ku noqday haddana isagii ayaa madaxweyne ka ahaan la ayagii isuma ogola isagana uma ogola bal waxay rabaan adigu noo sheeg doorashooyinkii la dhigay sharciyaddooda baarlamaanka labadiisa aqal ay dhigeen madaxweynuhu saxiixay inay diideen waa laga sheekeeyey kii ay iyagu ku taliyeen inay diideen waa laga sheekeeyey midkan ay iyagu dhigteen ayaga ayaa soo xulan lahaa xildhibaanada labadooda aqal doorashada madaxweynuhuna waxay ka dhacaysaa meeshii ay ka dhici jirtay meel wax laga farsamay karo kumaba taalo marna ayagaa keensanaya xildhibaanada guddiyadana ayagaa keensaday haddana ayagiyaa hor istaagay marka tii qof iyo cod ahaydna waa diideen tii dadbaneedoo ayagu keeneenna waa diideen in dowladnimada hore u socotona waa diideen bal waxaa xala adinku keena waxaan rabaa walaalayaal
jiid kasta oo siyaasadeed waa waqti kooban waa dhamaanaya haddii alle idmo balse wadajirkeenna iyo nabadeenna waa inaan ku dadaalno waa sida aad u garateen sidaas ayaana idinkugu garab taagan doonaa idinkalana shaqayn doonaa biidnillaahi alkariim intaas ayaan rabaa in hadalladeeda ku gaabiyo billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.